الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلهي بمهد له مدحوينا جمهورية الصوماليلاند مدن عبد الرحمن محمد عبد الله maanta oo ay taariikhdu tahay 23 bishii koowaad 2025 wuxuu soo saaray wareegto madaxweyne oo nuxurkeedu yahay magacaabis. wareegtada madaxweynuhu waxay u dhignayd sida soo socota. markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland, markii aan tixgeliyay muhiimadda ay ciidamada kala duwan ee qaranku u leeyihiin madax bannaanida qarankeena, difaaca, ilaalinta iyo sugidda nabadgelyada gudaha, badbaadinta iyo ilaalinta nafta iyo hantida bulshada Soomaaliland, dhowridda xorriyaadka aasaasiga ah iyo fulinta ku dhaqanka dastuurka iyo shuruucda Jamhuuriyadda Soomaaliland. markii aan ku qancay aqoontooda, kartidooda, nafhuridooda iyo waayo-aragnimadooda shaqo, isla markaana ay hanan karaan waajibaadka iyo mas'uuliyadaha ka dhalanaya xilalka soo socda. markii aan sameeyay la tashi, waxaan go'aamiyay laga bilaabo taariikhda maanta in sareeyo guuto Nimcaan Yuusuf Cismaan Gaaxnuug uu ahaado taliyaha ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaa xusid mudan madaxweynuhu taliye Nimcaan wuxuu u dallacsiiyey darajada sareeyo guute. 2 in sareeyo guute Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan Allaale oo loo yaqaan Cabdi Dheere uu ahaado taliyaha ciidamada booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland. 3 in sareeyo gaas Nuux Taani uu ahaado taliyaha madaxweynaha ee arrimaha ciidamada qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. 4 in sareeyo gaas Maxamed Aadan Saqadhi uu ahaado la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha ciidamada booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland. allah mahad leh Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland.